waa kaan wax ku baranay, waa kaan ku asturneen, cizi iyo sharaf ku lahayn, waa kii laynagu ixtiraamayey, waa kaan ummado ku hogaaminaynay. waddankan wuu daalay, wallaahi wuu daalay waddanka wuu daalay. aaway dadkiisii, aaway dadkuu ku daalay, aaway sow idinka maaha dadkuu waddankan ku daalay, sow wiilashiina iyo gabdhihiina maaha, sow kuwa wax ka soo baranaya halkaa, kuwa dibadda jira miyaanu sahan ahayn, miyaanu waddanku dirsanin? maxaa loo baahnaa 20 sano 30 sano dhulkeena hooyo markuuna soo gaarsiiyey? maxaa loo baahnaa in aynu xooggan isaga inaan wax ugu qabanno, inaan u dhisno. waa fashilannahay marka, raggii dumar waynu fashilannahay. ilaahay wuxuu leeyahay wahal jazaau lixsaani ila alixsaan. abaalka qofka markuu abaal kuu galo abaalkiisa jazihiisu waa maxay? sow ixsaan maaha? aaway ixsaankii dhulka aynu u samaynay? aaway eeg nabiyullaahi ibraahim abulambiyaa waa ka maka oo angegan wiilkiisii uu geynayo ismaaciil iyo haajir, kadibna ilaahay uu baryayo. eeg waa ka muwaadinka saxa ah, waa kan waxa laynoogu sheegayo qisada nabiyullaahi ibraahim ku dayasho ayay inoo tahay, inaynu raacnaa la doonayaa. waa ka uu dhahayo waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal haada baladan aaminan warzuq ahlahu min athamaraat. eeg waa ku dhahayo nabi ibraahim ilaahayow ka yeel beledkan, ilaahow ka yeel. waa beledkee? waa beledku wiilkiisa dejinayo, waa beledkuu guri ka aasaasayo, waa beledkuu doonayo inuu harkiisa harsado weeyaan. ilaahow beledkan ka yeel aamin, mid nabadgelyo ah, ilaahow mid badqaba ka yeel oo dadkiisa ku irsaaq thamaraat. irsaaq ilaahow ku irsaaq, ilaahow dharji beerihiisa iyo baddiisa iyo wixii oo dhan ilaahow keen. wuu u ducaynayaa dhulkiisa. nabiyullaahi ibraahim ku dayashaa inoogu sugan, rasuulkaa la dhahaya ku dayo nabi ibraahim, uga dayo wadaniyadda, uga dayo diinta keliya maaha. waa ka haddana nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam ku salli xabiibkiina. waa ka nabi muxamed maka uu u dadaalayo 8 sano jira, intuu mara xirto ayuu qaadanayaa ushiisa, markaasuu ari raacayaa. yuu u raacayaa dadka ay isku dhulka yihiin, uu rabaa inuu quudiyo. ilmihii abaa taalib ganacsi buu samaynayaa, wuu guursanayaa. waddankii muxuu sameeyey? eeg markii maka laga saarayey waa kuu ilmaynayey oo uu intuu u soo jeesta dhahayo makoy ilaahay baa igu og waxaa tahay dhulalka oo dhan tii aan u jeclaa. waasic codka marka wuxuu leeyahay eeg makoy waa dhulkiisii, waa dhulkuu ku dhashay. sidaanu ugu dhalanay halkan waa dhulkii uu ku dhashay oo uu leeyahay makoy ilaahay baa og waxaa tahay, ilaahay baa og waxaa tahay dhulka adduunka oo dhan dhulkaan ugu jeclahay. kaama tageen, kaama haajireen, kaama carareen haddaanu qoomkaaga i kaa saarin. allahu akbar. haddaanu qoomkaaga i kaa bixin. wuxuu doonayay ilaa uu ka dhinto inuu halkaa joogo. wuxuu doonayay inuu ku sabro, inuu dhibkiisa ku sabro, qoraxdiisa ku sabro, gaajadiisa ku sabro. xagguu aadayaa? xagguu aadayaa haddaanu dhulkiisa ku sabrin? waa maxay dhallinyaradan cararaysa oo u cararaysa dhulalkii gaalada, u cararaysa cayaarka beenta ah, u cararaysa ka cararaya dhulkoodii hooyo, dhulkii waalidka ahaa ka cararaya. war dhulkan haddaad ka carartaan yaa soo degaya? soo looma baahneen hooyada hadday gaajaysan tahay adaa wax siin lahaa. aabbaha waalidka hadduu gaajaysan yahay, hadduu aradan yahay, hadduu ooman yahay, hadduu cudur qabo, haddii uu baahan yahay, yaa la rabaa inuu garab taagan yahay. dhulku wuu daalay,
xaggee loo cararayaa in loo sabraa la doonayaa dhulka maxaa yeelay sabraa sad hela ولئن صبرتم لهو خير للصابرين haddii aad sabartaan dhulkiina u sabirtaan gaajadiisii aad ku sabirtaan idinka aad ku shaqaysaan akhiiran wallahi taasaa idin khayr badan cizigiina iyo sharafkiina inaad ku soo ceshan kartaan. qof walba dhul yaa dhisa, dhalinyaradaa dhista. odayaalku waa caqli, xooggu waa dhalinyaradii. innagaa laynaga rabaa inaynu dhisno. nabi muxamed sallallahu alayhi wasallam, nabi muxamed eeg markuu tagay madiina waatuu u ducaynay oo uu leeyahay ilaahow dalageeda noo barakee, ilaahow beeraheeda noo barakee, ilaahow noo barakee beegeeda, ilaahow noo barakee hawadeeda, ilaahow noo caafi. waata ilaahayna ka aqbalayo. qofka waxaa la rabaa dhulkiisa hooyo inuu u duceeyaa la doonayaa. maceeb baa dhulkeena inaan jeclaano, maceeb baa dhulkeena inaan u ducayno, dhulkeena inaan u shaqayno nadaafadiisa ka shaqayno caafimaadkiisa, ka shaqayno wacyigelintiisa, ka shaqayno nabadgelyadiisa, ka shaqayno. waa waxa lagu faano, waa waxa rasuulka 23 sano sallallahu alayhi wasallam isagay saxaabadiisa ay ku faanayeen ay u soo jeedeen inay maka nabadgeliyaan. tan afraad, dhalinyarada iyo social media. walaalayaal, social media waa nicmo ilaahay ina siiyey. social media waa nicmo ilaahay ina siiyey. waa aalad laba maaragtay af leh. waa nicmo in anagoo imika hadlaynaa nalaga maqlayo caalamka oo dhan. nicmo walba maxay u baahan tahay in ilaahay inoo waxay u baahan tahay nicmo walba in lagu shukriyo, si laynoogu dhowro, si laynoogu ilaaliyo, si laynoogu daa'imiyo. waan u baahannahay social mediaha, laakiin waxaad ogaataa waxa aynu ku qorayno social mediaha, waxa aynu ku akhrinayno, waxa aynu eegayno, waxa aynu ku hadlayna dhammaan waa xisaaban yihiin. ilaahay agtii bay ka xisaaban yihiin. hadalka wax waa lagu dhisaa, waxna waa lagu dumiyaa. noqda kuwii hadalkooda wax ku dhisa. maxaa yeelay ilaahay baa dhahaya wa inna calaykum laxaafidiin. social media aad u maqla wa inna calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun. ilaahay halkaa wuxuu idiin yeelay waa maxay? malaa'ig buu saaray, raqiib iyo catiid la yidhaahda, diyaar ahoo ilaalinaya, qoraya af iyo adin waxaad ku hadlaysaan. waa la qorayaa waxa kan. awal malaa'igtaa la dhahayay waxbay qoraysaa, laakiin waxaad ogaataan maanta idinkaa qoraya, idinkiibaa malaa'igta ka badiyey. war waxa aad ku hadlaysaan ee aad duubaysaan ee aad sheegaraynaysaan, waxaad ogaataan waxaa lagu darayaa kuwa malaa'igtaa lagu darayaa. berrito markaasaa lagu dhahayaa iqra' kitaabak. kaa 24 saac dhex fadhiya meediya, xumaanta fidinaya, dadka isku diraya, ka shaqaynaya namiimyada, ka shaqaynaya fasahaadka, fisqiga iyo fuxshiga ku fidinaya maqal iyo muuqaal. waxaa lagu dhahayaa markaad dhimatid, qiyaamuhu ma dheera, caawa haddaad dhimatid kitaabkaaga lagu kala bixinayaa. waxaa lagu dhahayaa iqra' kitaabak kafaa binafsika alyawma calayka xasib. eeg ilaah baad ku dhaash kitaabkaaga akhrisa. markaasaa waxaad leedahay intaad yaabtid ilaa shalay wixii aad samaysay waad ilowday, daraad waxaad duubtay waad ilowday gabadhaada, wiilkaaga sidoo kale habeen hore wixii aad duubtay fuxshiga ahaa waad ilowday. laakiin ilaahay ma ilaawin, ma unan ilaawin. markaasaa waxaad dhahaysaa maa lihaada alkitaab laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha. waa maxay kitaabkan aanan ka tegaynin wax yar iyo wax weyn. soo ma ogid addoonkii alla waa doontii allay. waxaa ninka xumida wada ee si xun intuu u hadlo, si xun beeni barobaganda keena, markaad u sheegaraysid adigoo xataa dadka tusaya, waxaad ogaataa inaad ku dembi tahay, inaad la mid tahay isaga oo kale aad tahay. kumanaanka fiirsanaya ayaad adiguna ku dembi tahay. ogow, eeg dadka maanta xumida ka wada social mediaha, inta daawanaysa lifeka eeg waa kumanaan weeyaan. laakiin culimadii iyo khayr wadayaashii, sama wadayaashii eeg beejajkooda markay hadlayaan qaala allah qaala rasuulullah 10 20 30 ruux waxaan boqol gaareenin baa daawanaya.
وحماس إيقعداتي إن إلهي وليهي ولقد صدق عليهم إبليس ذنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إبليس كدارتيسي والله وكدبيي أو إلهي ودارتي أو يري من كان أدرتي جنة إيقا صارتي علمهيس والله كما عبود دونان بل قيبا يلان دونا أنيقا يعبد ده قيب عن إلهي ونغضو أيها وإبليس وحدايا قيب عن إلهي ونغضو أو يعبد حال كوضا أفكود يدين كودي يعبد أيان يلانايا ما كدبي مس ما كدبينين إلهي وحوليه إبليس وكدبي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه ويراعن ويوضراعن المئة آدم إبليس بيوضراعن ويوضراعن يا ديدي إلا فريقا من المؤمنين إن يروا مؤمنين وانت وطلنك وواتنك صدنك بقولك داونيسا ما ركتاية تفاسيرتا داونيسا وناقا داونا يدقيسنا يا علماء ذويان انتن بغبغلهن بغبغاغا شيدان كان اخرسكا فسهادنا فحشي قوضا ننكن كمنانك كان يسوقود بسان والسوشيال ميديا سيدانا لو باعياي ما انتو وحايي عداتي ودن كينا يناد بلسان كرتان ما انت وحاي عداتي وذجركينا ايو استعيلكينا ايو قلبينا ايو حريركينا هاد السوشيال ميديا سيدو وناكسن واستعماشين ايه هاد السوصة بحدين اينا تكون لي سنكرتان ودنكينا اينا تقرنكينا كو الى سنكرتان اينا تمدلمذينا كو الى سنكرتان عالم كان هاد الهي هرتي اتودي كرتان وانا كان انغو تاغن مدلمذيني انغو قرنكيني الدفاع عنينا وذجرك كيني من مدينة الدفاع عنينا ولا ليال سوشيال ميديا هلا فايدستو سيدو وناكسن هلا فايدستو قلبك قدام بيا كويرا ديران دونو وكينو بلانسانين عفي ولا الكا عفسك واحد قرنيسان ولا ليال وعز إلهي هرتي وشرف ومدنمو وفرحت وفضيد وهرمر عزيك الشرف ما هني وحكلم عفسك الشرف ما هني وحكلم مكانه وحد قرنيسان وان ما انت اذن كوكو بشارين يا هرنا عديقا مقشين اذا الكين ما انت والله ثم والله امان شهاد ما دين هلكن قروح دان اتقبتان قروح دان ادو فردان يذبتان والله ما انت وحدكو كسبانيسان دنبي داف اي سداد جنات عرضو كويه هاي تدبض السماء والله داربان مرايا داربان مرايا والله داربان مريا ما انت فديهينا ايو ايمانشيهينا وحاد كوكس بنيسان دنبي داف ايو جنات كوين تدوض السمو الهي بدحيا نقو معنا بهن الهي واكو دحيو وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين اسو دقدقة او اسو كاليا دنبي داف ايو تدوب الجنة سداد جنة وكاليا جنات عرض قوض السماوات كي دولالك كويين وسو دقدقة يا لو دياريي جنات كان يدن بداف كان وحالو دياريي ددك متقين تا ددك الهي كبقايا ما انت وحايعت قلبي عبسي الهي اني كجرتو قلبي عبسي الهي اني كجرتو ايك الهي باينو شيغيا جنات كان يدن بدافك حدي عبسي الهي لويليو ور عبسي حقين كرادنا عبسيدا انو سينيس جناتك عبسيدا دنبيغينا لوغو دافايو حقين كهلينا اسغا حدنا انو شيغايو دحايا وان تعفو اقرب للتقوى الله يا
وأن تعفوا إن أدعفسد والالكا ولاشا كان دوغي كان دير كان نولي كان دنتي كان كدلمي إن أدعفسد عفس كاسا ودو إن أد متقين كن قطان عبسي أدكو هشان عبسي أد جنات يدن بدافكو إليسان. الله أكبر. ما أنت وحالينا سينا يا عذر كان يندلو دي انتقام كاه أرسقاه عذر كان ظلمقاه عذر كان حسدكاه عذر كان ينك لقيي عافمات كيسيبا ما أنت لينا سينا يا فريه أين كوة الداووبي لحين أيو إلهي ما أنت ينو الديبي يا لو الديبي وكودهيو يا كميدة هرتددك يقاه متقين تا إلهي الجنات كجينيا وحاكميدة والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كوا مركا لبباتيو نبلا سو غارسي آنان حناقين عرضو اوركا كقرية. الله أكبر. كوا عرضو لابتا كقبا عرضو دنبل قفكا إلاليا اوركيسا دنبشا كدمية كليلكا كدريمية كان حنونكا قرصانية او ولالكي عفينية محا إلهي سينيا سداد جنو إلهي سينيا. لا إله إلا الله. maxaa lagugu dulmay gabadhaada maxaa lagu dulmay hooyada maxaa lagu dulmay maxaa lagu dulmay adiga maxaa lagugu dulmay aabaha wiilka ay soo eegay adiga kula hadlayay maxaa lagugu dulmay adiga kuwiina fadhiyaha doobadhawaya kuwiina murugaysan kuwiina qaylinaya harsalla ladila war maxaa lagu waa maxay culayska ku haysta maxaa lagugu dulmay waxaa lagugu dulmay waxaaba adduunya laga qaatay guri adduunya laga qaatay waxa laga qaatay waa ceel adduunyo waa gaari adduunyo waa shilimaad adduunya xaabo ayaa laga qaatay iyar ayaa laga qaatay laakiin ilaahay subxaanahu wuxuu doonayo xaabadan inuu kugu bedelo jannad ayuu doonaya. Allahu akbar. ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar waxaan indhuhu maqlin dhaguhu arkin yaa bini aadan ku soo dhicin buu kugu bedelayaa shilinkan yare laga qaatay. wuxuu ku dhaxshiinayaa walaalka oo aad maanta cafisid ilaahay darajo maanta ku siinaya muttaqiin buu marka hore ka dhigay haddana ilaahay wuxuu ku siinayaa darajo la yiraahdo ihsaan. darajo la yiraahdo ihsaan. ihsaankana waa darajada ugu sarreysa darajo la qaata islaamkay ka sarreysa iimaankay ka sarreysa. والله يحب المحسنين. إلهي وجعليهي محسنين إلهي وجعليهي محسنين واكوه ولا الله عافية عرضنا الله تذكو قرية رسولك الله داحيا صلى الله عليه وسلم يهودي مركي دبتي او اي دلين او اي جبيين فوشيسي او اي عاين او اي دباتيين كسو عيريين قريش كسو عيريسي مكة مركي عرب اي عجم اي يهود اي سوطاقين حبيب كاغا صلى الله عليه وسلم ايا الله دحيا اسقو عيليسن صحابتي سيل الله او لا دلي او لا جردلي او لا حرحري او لا بهدلي ايا لليهي فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. عفي لليهي او سامح كون محيلي سامحوا معها اللي دناشو ان ادعفسا معها عيب معها دلنما معها بل وعزي يا الشرف. عفي باليري ان الله يحب المحسنين. الهي كو احسانك سميه او عبادة احسانك كل رغما انا ارسن الهي واجعلي جعلك الهي هيك محل ولايا hadduu ilaahay ku jeclaado addoonka allow sababad maxuu ku siinayaa cafiska waa kan waa marka hore wuxuu leeyahay addoonkayga markaan jeclaado oo warkayga uu maqlo waxaan u noqonayaa indhihii uu wax ku arkayay indhahaaga xumaan dambe arki mayaan dhegihii uu wax ku dhegaysanayay dib dambe dhegahaagu xumaan ku dhegaysan maysid afkii uu ku hadlayay gacmuhu wax ku qabanayay lugihii uu ku socday ayuu maaragtaa ilaahay u noqonayaa. waxaa ka sii daran والله بوليه يا الله هدي هو وحي ويديستو الدون
addoonkan aan jeclaaday wallaahi waan siinayaa, haddii uu waxay weydiisto waan siinayaa, haddii uu wax iga magangalana waan ka magangelinayaa. yaa dhahaya ilaaha ballantiisa oofiyaa dhahaya, waxaa dhahaya ilaaha awoodda leh, waxna kaa difaaci karo waxna ku siin kara. maxaynu u qaadan lahanaa? ilaahay baan ku dhaariyey. eeg fadiilada iyadaa nabi muxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh wuxuu sameeyey, wuu qaatay, cafiskaasuu qaatay. ilaahay baa dhahaya dadkan ku dhimay, ku dilay, ku fogeeyey, ku xasday, khudi alcafwa waamur bilcurf waacrid can iljaahiliin. waxaa la dhahaya cafiska qaado. hadday isugu kaa timaado inaad aarsato iyo inaad cafiso, qaado cafiska. maxaa yeelay cafiskaa ka wanaagsan, cafiska ayaa ka wanaagsan inaad aarsatid. cafiskaa ka wanaagsan in aad walaalkaa uurkiisii murugelisid, xumidii lagu geystay xumi kale inaad ku aartid. maxaa yeelay waad leedahay inaad cafisid walaalkaa, waad leedahay inaad aarsatid. wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih walain sabartum lahuwa khayrun lisaabiriin. haddii laydin ciqaabo, ilig laydinka rido, qof laydinka dilo, waad ka dilan kartaan, iligii waa ridi kartaan, ishii waa ridi kartaan, laakiin ma khayr baa idinkugu sugan? nafsadaada iyo shaydaan ayaad u danaysay markaa, ayaad u hiilisay markaa, laakiin ilaahay ma doonayo. haddii wax laydin dhimo, haddii dil laydin geysto, haddii laydin dulmo, ilaahay wuxuu leeyahay dadka la dulmay sabraa meel buu u diyaariyey. ilaahay wuxuu u diyaariyey cafis, wuxuu u diyaariyey jannaad, xuuralciin ayuu u diyaariyey. walain sabartum lahuwa khayrun lisaabiriin. waxaa la yidhi haddaad sabirtaan, ilaahay dartii u cafisaan, ilaahay wuxuu idin diyaariyey maxay? taasaa idin khayr badan oo jannaadu idin diyaariyey. furay maxaa dhacay? mar allaala markuu furay muxuu sameeyey? dadkii dilay ayuu u tegey, dadkii dilay ayuu u tegey. mar allaaliyo markuu u tegey muxuu sameeyey? wuxuu yidhi maanta maxaad iga filaysaan? dad yahow maanta maxaad iga filaysaan? waa dadkii dilay xamsa, waa dadkii guryihiisii dhacay, maxaad iga filaysaan ayuu yidhi. muxuu ku yidhi? waxay yidhaaheen qaaluu khayraa, khayr baanu kaa filaynaa bay yidhaaheen. allahu akbar, khayr ayaanu kaa filaynaa. akhun kariimun wabnu akhin kariim, walaal baa tahay wanaagsan, waxaa tahay walaalkeena wiilkiisii baa tahay. allahu akbar. muxuu yidhi? idhabuu faantum tulaqaa, xor baa tihiina taga. eeg siduu u cafinayo rasuulka sala allahu calayh wasalam. allahu akbar. nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam, eeg nabiyullaahi yuusuf waad garanaysaan, dadkii ceelka ku riday, nabiga dadkii ceelka ku riday, eeg dadkii ceelka ku riday muxuu sameeyey? ceel baa lagu riday, intaasoo sanay dulmayeen. mar allaaliyo markii la dulmay ayaa walaalihii muxuu ku yidhi? walaalihii intay u yimaadeen ayay uyu cafis bay weydiisteen. markaasaa wuxuu yidhi laa tasriiba calaykum alyawm, laa tasriiba calaykum alyawm, yakfir allahu lakum wa huwa arxamu raaximiin. maanta laydin dagaali maayo, maanta waa laydin cafiyey. yuu dhahayaa? waa dadkii ceelka ku riday weeyaan. maxal baa lagugu riday adiga? maxal baa lagugu riday adiga? ma dhibaatay nabiyaalkaan la gaarsiinin baa lagu gaarsiiyey. maxaa loo baahan yahay marka? inaynu ku dayanno nebiyadeenna, inaynu ku dayanno rasuulkeenna, nebi yuusuf iyo nebi moxamed, nebi ibraahim, inaan ku dayannaa loo baahan yahay. walaalayaal, aad iyo aad baan runtii idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan aad ii daawanaysaan, aad ii dhegaysanaysaan. waxaan rabaa marka miraha cafisku leeyahay inaan idin siiyaan doonayaa. haddaan cafiyo walaalkay maxaan helayaa? rasuulka waa ka uu dhahayo sala allahu calayhi wasalam, man kadama qaydahu
من كظم غيظه وهو يقدر على انفاذه ملأ الله قلبه امنا وايمانا. الله اكبر. qofkii caradiisa qariya, qofka qariya caradiisa oo walaalkii cafiya isagoo awood u leh inuu ka aarsado, waxaa la yidhi ilaahay qalbigiisa wuxuu ka buuxiyaa iimaan iyo amni iyo nabadgelyu ka buuxiyaa. allahu akbar, allahu akbar. wuxuu kaloo leeyahay alla idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim. haddii xumaan lagu geysto ha u geysanin, haddii lagu gooyo ha gooynin, haddii lagu xumeeyo ha xumaynin. idfac bilatii hiya axsan, idfac bilatii hiya axsan, idfac dhiib bilatii hiya axsan. xumaanta lagu geystay mid ka wanaagsan dhiib. haddii lagu dilo oo ilmahaagii la dilo adiga noole, haddii lagu dulmo adiga cafi, haddii lagu gooyo xiriiri. oo waxyaabaha diinteenni aynu ka dhaxalnayna baraysa weeyaan. allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. diinteenna maxaa ka cizi badan, diinteenna maxaa ka sharaf badan, diinteenna maxaa ka naxariis badan, diinteenna maxaa ka qurux badan, diinteenna maxaa ka cafis badan. idfac bilatii hiya axsan. haddii lagu xumeeyo ha xumaynin, haddii lagu dulmo ha dulmin, haddii lagu dilo ha dilin, haddii lagu fogeeyo ha fogaynin. idfac bilatii hiya axsan. oo maxaan ka helayaa markaa iyadaa? faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim. kii shalay ku gooyey, ku dulmay, ku dilay, ku dhakray, ku khiyaanay, waxaabaad arkaysaa daqiiqada kadib isagoo saaxiib qaali ah, isagoo ku jecel, isagoo ku adeegayaad arkaysaa. waadna aragteen social mediaad ka aragteen, weliba isbuucii hadda ahaabaad ka aragteen. bal hala isku dayo cafiska. cafiska waxaad ku kasbanaysaa amni, nabadgelyo, waxaad ku kasbanaysaa iimaan, waxaad ku kasbanaysaa walaal fiican, waxaad ku kasbanaysaa oo uu leeyahay rasuulkeena sala allahu calayh maya xadiiث alqudsi uu bukhaari warinayo, waa kuu dhahayo ilaahay idaa aradtum raxmatii, idaa aradtum raxmatii farxamuu khalqii. allahu akbar. haddaad doonaysaan raxmadayda, haddaad doonaysaan uurkiina naxariis inaan geliyo, naxariistana waa tan jannada lagu galo. haddaad doonaysaan uurkiina inaan jilciyo, inaan jacayl idin dhex dhigo, ha ilaahay baa dhahaya u naxariista khalqigayga, u naxariista ciyaalkayga, noqda kuwa anfaca ciyaalkayga. allahu akbar, allahu akbar. waxaan rabaa walaalayaal qiso aad iyo aad u qurux badan oo aan aniga la kulmay oo cafiska ku saabsan inaan idinla sheegareeyaan doonayaa. maalin maalmaha ka mid ah magaalada Nairobi anigoo jooga, habeen hooyooyin muxaadaro u qabanaya ayaa cafiskan ka hadlayay. cafiskan sanooyin baan soo waday, waxaan ugu celcelinayo miraheedii macaanaa baan arkay. inay ila aragtaan baan ayaan doonayaa. waxaan arkay hooyo waayeel ah oo ooyeysa, anna waan hadlayaa, iyadiina fiqdii baa ka dhammaatay. hooyadii ooyeysa waan naxay, waxaan isri miyay xanuunsan tahay? waan joojiyey, waxaan idhi hooyo, hooyooyinkeena allah u naxariisto, hooyo maxaad la ooyeysaa? waxay tidhi hooyo, eega hadallada quruxda badan, waxay tidhi hooyo waxaan la ooyayaa, waxaan isqabadsiin la'ahay, isu keeni la'ahay cafiska aad ka hadlaysid adiga iyo xaaladayda aniga. waxay tidhi magaalo ka mida magaalooyinka Soomaaliya ayaa wiil yar inta bam loo soo xiray ayaa la igu soo diray, qolooyin ay wax naga dhexeeyeen ay igu soo diray. wuu soo ag fariistay wiilkii yaraa, bamkii ayuu isku qarxiyey. wiilkii wuu dhintay, anna waan gubtay bay tiri, dhinac baan eber ka noqday. wiilkii wuu dhintay, anigana ilaahay maadaama aan noolahay waxaan cafiyey wiilkii yaraa. ilaahay baan u baryay dembigiisa inuu dhaafo. ninkii nafsadayda u soo dhigtay ee ilaahay iga badbaadiyey waan cafiyey, laakiin waxaan cafin lahay inkaar qabayaal
inkaar qabayaal shayaadiin ah oo qaraabo aan nahay, xigta iyo sokeeye aynu nahay. Yurub baan ka soo shaqaystay, baraf soo xamaalay, kis yaroo aan keenay ayaan u dhiibay 100,000 oo aan iri ilmaha inaan soo celiyaan doonayaa, guryo ii dhisa. Guryihii bay ii dhisi waayeen, xoolihii bay iga dhaceen, doolarkii baa kacay, waa la khasaaray, waxbaa si noqday. Maalin walbana guryihii way dhisayaan, dad bay siinayaan, anigina xoolahaygii way dhaceen. Waan ka soo saari la'ahay. Seen u cafiyaa daalimiintan i dhacay. way ooyaysaa hooyadii oo intii bay sii kordhisay. Seen u cafiyaa mar walba oo aan arka iyagoo gadgadoomaya, gawaare ku socda, raaxaysanaya, guryo iibinaya, 1,000 jeer ayaan dhintaa. Seen u cafiyaa hooyo. sidaasoo kale lagu dhacay wiilkaaga, sidaasoo kale idinka laydin dhacay oo laydin dulmay oo xoolihiinni loo leexsaday, sidaasoo kale dhulkiinni laydinkaga fogeeyey, sidiinoo kale uurkiina xumaan loo geliyey. hooyada keligeed ma aha, waynu isdulannay Soomaalay. waxaan ku yidhi waad cafinaysaa baan ku yidhi, sababtoo ah waxaadan aqoonin cafiska doorka uu ciyaarayo. cafisku waa awood, cafisku waa quwad. waxaan idhi dadkan aad ka qaadan laadahay xoolahaagii, gacantan daalimada ee aad xoolaha ka qaadan laadahay, cafiska wuxuu awood u leeyahay. idinkuna waa idin leeyahay, dhegaysta. haddii laydin dulmay, xoola laydinka qaatay, ceelal iyo dhulal laydinka qaatay, beero laydinka leexsaday, haddii wax walba laydinka qaatay, cafisku wuxuu awood u leeyahay. maadaama awood darri halkan ay ku dhigtay, taagtaadii darraatay, cafiska wuxuu leeyahay awood inuu daalimiintan idinkaga soo qaado xoolihiinni. ma maadi ahaan xaabadanu idin soo qaadaya, maya wuu ka weyn yahay xaabo inuu qaado. xaaba hadduu yahay inuu idin soo wareejiyo, bal xoolihiina intuu gacantan daalimada idinkaga wareejiyo ayuu gacan ilaahay oo nadiif ah oo awood leh ayuu ilaahay idinkugu dhiibayaa. kadibna ilaahay baa kuu korinaya. guriga lagaa dhacay ayuu korinayaa, kuu badinayaa. beerta lagaa dhacay ayuu badinayaa alleh subxaanahu wa tacaala. kadibna maalinka qiyaamaha waxaa lagu dhahayaa nicmooyinkan faraha badan adaa leh. oo waa sidee? waa $100 ee aad cafisay, waa wixii yaraaye xaabadii adduunya. cafiska halkaa eeg. rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ayaa maalin u sheekaynayay saxaabada, markaasuu hal mar cirka fiirinayaa oo uu dhahayaa kor intuu fiiriyo, dilay wuu i dulmay, ilaahow iiga qaad buu leeyahay. iiga qaad markuu ayuu dhahayaa, war ninkan xasanaadkiisii wuu dhammaado, waa la kala qaatay, waxba ma hayo, maxaan kuu sameeyaa? wuxuu leeyahay dembigayga saar. rasuulka markaasuu ooynaya sala allahu calayhi wasalam. markaasaa ilaahay baa kala dhex galaya, ilaahay baa cafiska bilaabaya. eeg, ninkii baa jannada loo furayaa, madlamada laga haystay. waxaa la dhahayaa eeg xagga maxaad ku aragtaa? markaasuu leeyahy waxaan ku arkaa jannaad xuuralciin ayaan ku arkaa, waxaan arkaa webiyaalo, waxaan arkaa geedo dahaba, waxaan arkaa wax indhuhuba haynay arag, indhuhu ma arag, qalbigu biniaadan ku soo dhicin, dhega biniaadan aanay maqal, naciim baan arkaa buu leeyahay. markaasuu dhahayaa waxaa yaa iskale buu leeyahay, ma rasuul baa leh, ma ambiyaa leh, ma saalixiin baa leh, ma shuhadaa leh? maye waxaa leeyahay ninkii gataa iskale. oo yaa gadan kara xuuralciin? waxaa la leeyahay adaa gadan kara. maxaan ku gadan karaa? walaalkaa oo aad cafisid. allah, walaalkaa oo aad cafisid waxaad ku helaysaa jannaadkaa 8 aad ku helaysaa. hooyadii markay hadalkaa maqashay waxay tiri, sheekhow markhaati noqo hooyo, gabdhayahow markhaati noqda. wallaahi waxay tiri kuwan i dhacay sanooyin aan cafin lahaa, uurkaygii ooyey, murug geliyey, waan cafiyey, ilaahay dartii baan u cafiyey, adduunyo maahay aakhiraan cafiyey. allahu akbar, allahu akbar. adna waxaan ugu bishaareeyey gabadhaas eeg
$100,000 $200,000 xaabada adduunyo waxay ku bedelatay maxay? jannaad bay ku bedelatay. adiga waa lagu dhacay, waa lagu dulmay, dhul iyo waxaa lagugu dulmay beer oo laga qaatay. xaabadan adduunyo diyaar ma u tihiin inaad ku bedelanaysaan jannaad 8 ah? diyaar ma u tihiin qof walba oo la dulmay inuu walaalkii cafiyo? diyaar ma u yahay? diyaar ma u yahay inaan duceeyaan doonayaa? diyaar ma u tihiin intiina iminka halka joogta inaad iscafisaan? diyaar ma u tihiin? inta diyaarka ah idinkoo raalli iga ah ha istaagaana, gacmahana ha taagaana. allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. waa cafis guud. allahu akbar. qalbiga ma iska cafinay? qalbiga ma iska cafinay? walaalaha dhintay ma cafinay? kuwa nool ma cafinay? kuwa dhintay ma cafinay? kuwa fog ma cafinay? adduunye iyo aakhira allah idin cafiyey. fariista allah idin cafiyo. ilaahay adduunyada ha idin cafiyo, aakhira allah idin cafiyo. kuwa jannaad gala allah idinka yeelo. dembigiina allah dhaafo, culayska allah idinka qaado. ilaahay waxaan ka baryay dhallinyaradan maanta garbahayga taagan, dhallinyaradan uurkayga farxadda geliyey, dhallinyaradan ilaahay waxaan ka baryaaya, ilaahay wallaahi keligeena maahin, wallaahi keligeena maahin. halkan malaa'ig baa inala joogta, ilaah malaa'ig baa inala joogto, ina wehelisa, malaa'ig baa aaminsanaysa. culayska allah inaga qaado, culayska allah inaga qaado, culayska allah inaga qaado. albaabada khayrka allah inoo furo. waynu harnay, ummadihii ka harnay, xijigeenna allah soo celiyo, diinteenna allah nagu soo celiyo. dhalinyarada inta xanuunsan ummadeenna allah caafiyo, inta xanuunsan allah caafiyo. qaar baa xanuunyo xunxun qabe, allah ka caafiyo. qaar baa qoorta iiga soo xiray ducada oo xanuunsana, ilaahay ha caafiyo. intaan xanuunsan bukaan jifi, bukaan socod, allah ha caafiyo. ilaahay waxaan ka barya dhallinyaradeena intaana guursanin guur xalaala allah ha siiyo, guur ay ku dhowrsadaan ay ku degaan allah ha siiyo, guur ubad saalix ay ku helaan allah ha siiyo. ilaahay waxaan ka baryay inta xiran allah ha soo daayo, inta xiran allah ha soo daayo, inta xiran allah ha soo daayo, inta maqan allah ha soo ururiyo. ilaahay inta murugaysan farxad uurkooda ha geliyo. ilaahay waxaan ka baryay culimadeenna kor allah ha yeelo. waxaan maanta ku faanayo oo aan ku socdo oo aan runtii madaxa ii saaran waa culimadeenna, kuwa dalka joogay, kuwa dibadda joogay. ilaahay culimadeenna cimri dheer ha siiyo, cibaadasana allah ha siiyo, culimadeenna ducadooda allah hayna siiyo. waxaan idinka codsanayaa inta halkan joogta, waxaa la ii sheegayaa intoodii bannaanka inay taagan yihiin. waxaan idinka codsanayaa qalbiyadan quruxda badan ee sida quruxda badan u dhegaysanaya maanta, marka la baxayo gabdhaha waa in la dhowraa. maxaa yeelay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wixii ugu horreeyey uu istaagay wax xuquuqda gabdhaha ayay ahayd. maalinkuu dhimanayay waad garanaysaan wixii uu ka dardaarmay gabdhaheenna waa sharafkoodii allah soo celiyey. gabdhahan waa walaalihiin, gabdhahan waa xaasaskiin, waa eedooyinkiin, waa habaryarihiin, waa hooyooyinkiin. waa feer laydinka sameeyey, feertiina ayaa laga sameeyey. inaad qawaariirtan inaad ilaalisaan baa laydinkaga baahan yahay. guryahoodii si nabada inay ugu tagaan baa loo baahan yahay. maanta quruxdan aad ku timaadeen, akhlaaqdan aad ku timaadeen waa la duubayaa oo waad arkaysaane, ilinkaana lagu qabanayaaye ha idinka muuqato. ilaahay waxaan ka baryay qof walboo walaashii caawiya, si nabada ku caawiya. ilaahay waxaan ka baryo ixtiraamo qadariya, maalinka qiyaame macal xabiib allah la soo saaro. diyaar muu tihiin? diyaar muu tihiin?
gabdhaha ha hormaraano kadibna idinkaa baxaya. ilaahay waxaan ka baryayaa maanta halkaanaynu ku kulannay meel ka qiimi badan jannaadka jannatulfirdows maca alxabiib allah isugu kaaya geeyo. aad baan idin jeclahay, aad baan idin jeclahay. adduun iyo aakhiro jacaylkaas waxaan rabnaa jannaad inaan ku tagno maalinka labada isjecel ilaahay dartii isu jecel halkaa harkaa ay harsanayaan ilaahay hayna wada geeyo. aad baan idin jeclahay. waxaan isku ognahay waa maxay? 5 qodob aan isku ognahay oo ah diinteena inaan u soo noqonno, qarankeena inaan ilaalino, waddankan xil baa naga saaranay inaynu dhowrno, social mediaha inaynu si fiican u isticmaalno, inaynu iscafinno. astawdicukum allah alladii laa tadiicu wadaa'icuhu. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. waxaan marka hore u mahad celinaynaa sheekh maxamed ajri xasanaad allah kaa siiyo, annagana allah nagu anfaco. dhegaystayaasha ballanta qaaday waxaa laga doonayaa inay oofiyaan, alla dartiisu oofiyaan, ilaahayna dembidhaaf ku weydiistaan. sidoo kale shiikhu markii uu baxo haddii alla yidhaahdo waa bixi doonaa iridda xaggaa xigta raggaa ka bixi doona, gabdhuhuna waxay ka bixi doonaan iridda weyn. fadlan yaan la cariirin dumarka, ha laga baxo iridda dhinacaas xigta raggu ha ka baxo, dhinaca kaletoodna gabdhuhu ha ka baxaano. shiikhaan maxaa salaamaynaynaa, waa maasantaa shiikheennii, ajri xasanaad allah ku siiyo. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.